السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلة ومالين كلة. أنا هو معلم موسى. برتا عادي قد داونيسو وبرتا إنه كل إنه هي يوتيوب كمعلم موسى official channel. هذه مقال كإنه وياهي مركي كوجه الرئيسي فضلا برنامج أما channel كسبسكرايب نصار جنبالك فروسي وكوسو جارا مقالة عن صادقنا برنامج عن صادقنا لايك تهكد دارين إن تكجر عضاء سيدو كله برنامج كله وداك أو لا شر جري ولا كاجا ولا شهادة مقن. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. مقدمة سير كدب ما أنت وحن ربا إن إذن لو ذاقو مركا أن أنيق كله وذاق كدب أديقن اللسي وذاقتو ولا الكاغا ولا شاذا مسلمة ده أباهن إني كفا إذيستان سيدا أديق بأد وفا إذيستي أو كالي مروال بحسوس نو قولك أورانا الدال على الخير كفاعله dadka qofka khayrka tusaawaxa uu lamid yahay khayrkaas inuu isaga sameeyay oo kale ajibkiisoo kale ayuu leeyahay. waxaan rabaa maanta mowduuciga oo uu yahay oo aan rabaa inaan ka hadlo ilaahay inta uu iga garaadsiiyo waxaan kula wadaagi doonaa walaal bal todoba ma ahane 9 kamid ah riyooyinka aynu ku riyoono haddii mid kamid ah aan ku riyoono khatar nagu soo socota ay tahay waxaan kula wadaagayaa 9 nooc oo kamid ah riyooyinka aan aragno ee aan ku riyoono mid kamid ah haddii aad ku riyooto ay tahay macnaheedu khatar kugu soo fool leh oo kugu soo socoto la doonayo inaad digtoonidaada qaadatid khuduu xidrakum digtoonidaada inaad qaadatid la doonayo mar walba walaal waxaad ogaataa riyooyinkan ilaahay uu tusaayo aynu arkayno habeenkii markii aynu uridno laba bay mid noqotaa midna waa bishaaro midna waa digniin midna waa bishaaro oo waxbay ku tusinaysaa bishaaro kugu soo socoto iyo farxad kugu soo socoto iyo midna waa digniino wax kugu soo socdo iyo bala kugu soo socoto ayay kaaga digaysaa. marka ma ahan in aynu yareysana riyooyinka aynu riyoonayno ee aan dhahnaa waa riyo un iska daa riyo un hariyale ma ahan waa waxaad ku riyootay leey waa kaliya inaan dhahnaa ma ahan macnay ku fadhisaa qiime leedahay riyada aynu arkayno maxaa yeelay cid kale maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu xiriirin karto ma jiro sababtoo waxyigii waa go'ay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waa uu dhintay isagaana afkiisa ka yiri oo yiri waxyiga kama harin ee nabinimada illa al-mubashshiraat mubashiraadka maxaa waaye markii la yirina wuxuu yiri mubashiraadku waxa weeyaan waa riyo fiican oo qofka muslimka uu ku riyoonayo ama loogu riyoonayo warkaan idinku daalinin 9 riyo ee haddii aad mid kamid ah ku riyooto ee tahay khatar kugu soo socoto midda koowaad walaal waxa waaye inaad aragtaa qof meed ah oo dhintay oo ku yimaada isaga oo xanaaqsan waa midda koowaad qof meed ah oo dhintay oo aad ogtahay inuu dhintay ama qaraabadaada ha ahaado ama shisheeye ha ahaado ee ku yimaada isaga oo xanaaqsan maxay tahay marka waxay tahay waxa weeyaan isaga waxa uu og yahay waxyaabo aan anaga ogeyn qofka marka uu dhinto indhihiisa waa laga fiidayaa mataqaanaaye ee daboolka laga qaadayaa waxyaabo uusan hore u ogeyn ayuu ogaanayaa sidaas daraadeed marka aad adiga sameynaysid camal xun qofka meedka wuxuu leeyahay alla yaa i celiyo adduunyo i celiyo wax fiican aan sameeyay marka meedka waxa uu arkaya ama uu og yahay waxyaabaha qaarkood ee qalaadka ee aad sameynayso haddii uu ku yimaado habeenkii riyo uu kugu yimaado isaga oo ku careysan oo aan kula hadlaynin oo xanaaqsan macnaheedu waxa weeyaan digniin waaye xaalad khatar ah ku sugan tahay xaaladda aad ku sugan tahay waa inaad ka soo noqotaa ilaahay u toobad keentaa wanaagsanaataa meel xun iyo wado xun aad ku jirtaaye numberka labaad waxa waaye walaalayaal haddii aad ka daahdo aad ku riyooto adiga oo imtixaan iskuul ka daahayo ama iskuulka imtixaankiisii ayaa su'aalihiisii ka jawaabi weysay ama waa ay ku dhaafeen iyadana waxa weeyaan imtixaan culus ayaa adduunyada inta aad nooshahay kugu soo socdo
imtixaan ayaa kugu soo socdo. haddii aad imtixaanka iskuulka adiga oo ka daahay ama ku dhacay haddii aad ku riyooto, arrintaas iyadana khatarteeday leedahay. waxa kugu soo socdo waa lagu imtixaanaya, fitna kugu soo socoto. midda saddexaadaan u gudbayaa. midda saddexaad waxa waaye haddii aad ku riyooto masas waaweyn iyo halaqyo iyo abeesooyin iyo dibqoloocyo iyo wixii la midka ah. waxaasna waxa ay tilmaamayaan inuu cadow kugu soo socdo, cadow iyo balaayo inay kugu soo socoto, inkastoo ay sii kala daran yihiin. maska haddii uu yahay mas madow ah, sixir waaye. mas madow haddii uu yahay sixir waaye. haddii kalar kale uu yahay cad, guduud, jaalle, buluug, asraq, noocuu doona ha ahaado, markaasi waa cadow. cadowtinimada unbaa kala daran. marna waxay noqon kartaa sokeeye iyo qaraabo, marna wuxuu noqon karaa cadowgaas shisheeye ayuu noqon karaa. laakiin maska nooc walba uu yahay waxa uu ishaaradiisu ay tahay cadowtinimo iyo sixir iyo cayn iyo xasad. masku macnihiisu waa saas waaye. haddii aad ku riyooto adiga oo mas ku ceersanayo, adiga oo mas ku qaniinayo, adiga oo mas kula dagaalamayo, waxaasoo dhan waxa weeyaan khatar kugu soo socoto waaye. cadowtinimo, sixir iyo jin iyo insi ay wadaan ayaa kugu soo socdo. numberka 4, adiga oo qaawan haddii aad ku riyooto. adiga oo qaawan oo aan dhar xiran haddii aad ku riyooto, waa dignin xagga rabbi ka timid. laba un bay mid noqotaa. adiga oo qaawan haddii aad ku riyooto, mid waxa weeyaan in ay ajirkaaga u yaryahay, xasanaadkaaga yar, camalkaaga wanaagsan ee aad samaynaysaa aad u yar. midda labaadna waxa weeyaan fadeexo. fadeexadaas aday kugu dhici kartaa, walaasha, walaalka, hooyada, aabbaha, reerkaaga fadeexad kusoo socoto oo kusoo food leh waaye. haddii aad ku riyooto adiga oo qaawan, cawradaadan is arkay ama lagu arkay. haddaad is aragto ama lagu arkay, digniin waaye rabbi subxaanahu watacaala xaggiisa ka timid, fadeexo kugu soo socoto waaye. cibaadadiyaa ka gaabisay, cibaadeyso, salaada duko oo iska xoojiya salaada. numberka 6 ama numberka 5 aan iraahdee walaalayaal ayaa waxa uu yahay gabar la qabo xaas ah haddii ay ku riyooto ninkeeda oo kaxeynaya gaari aan gaarigiisa ahayn. gaari aan gaarigiisa ahayn ninka oo kaxeynaya haddii ay ku riyooto, bishartina waxa ah gaariga inuu yahay gaari cusub. haddii gaariga mustacmal uu yahay ama qadiim uu yahay dhib ma lahan, laakiin baabuur cusub, ninkaaga oo baabuur cusub aan baabuurkiisa ahayn, ama ninkaaga baabuur wadow maba yaqaanaba, waxaad ku riyootay ninkaaga isaga oo baabuur wado, baabuurkaasoo baabuur cusub ahaad ku riyootay. waxa weeyaan iyadane gabadha keliya tan khatar u tahay. gabdhuhu ma jecla, inkastoo khatar weyn aanay ahayn, laakiin gabdhuhu ma jecla. oo waxa weeyaan macnaheedu in mataqaanaye ninkaaga uu gabadh kale kula gursanayo, adiguna aada maseeri doonto, adiguna aada maseeri doonto. waa haddii aad ku riyooto ninkaaga oo gaari cusub qiyaadadiisa ama steering u haya haddii aad aragto. numberka 6, haddii aad ku riyooto adiga oo salaada u dukanayo jiho aan qiblada ahayn, jiho aan qiblada ahayn, arrintaasna waxa weeyaan khatar ayaad ku sugan tahay. oo macnaheedu muxuu yahay? mubtadica tahay, mubtadica tahay. meel aan salaada u ansixinin ayaad ku dukatay, saas daraaddeeda ayaad waxaad gacanta iyo faraha kula jirtaa bidco iyo wax uusan ilaahay raalli ka ahayn. macnaheedu saas waaye. waa ka gudbayaa macnaha 7aadaan u gudbayaa. midka 7aad waxa waaye gabadha haddii ay ku riyooto iyada oo ay lumisay oo ay ka luntay kabaheeda haddii uu ka lumo gabadha, ama dahabkeeda, waxyaabaha ay isku qurxiso, jijin iyo faraanti iyo dahab oo kaa dhumaayo adiga oo raadinayo, iyo kabahaaga haddii aad ku riyooto gabar yahay, iyadana khatar kugu soo socoto waaye. wax fiican ma ahan. waad dhunsan tahay oo xaqa ayaad ka dhunsan tahay, oo waxaa la doonayaa inaad xaqa usoo noqoto, wadada toosan inaad usoo noqoto ayaa la doonayaa. marka sidaas daraaddeeda gabadha haddii ay weyso waxyaabaha ay isku qurxiso, dumarku ay isku qurxiyaan, ama kabaheeda haddii ay weyso, waxa weeye arrintaasi gabadha uma fiicna iyadane, sababtoo ah dalqadeeda ama talaaqadeeda ayay ka tarjumaysaa. midda 8 waa midda u dambaysa, midda ka horeyseen. numberka 8 ayaa waxa uu yahay ilkahaaga oo burburay ama madoowaaday, kalarkooda isbedelay. riyada 7aad ee 8aad waxa weeyaan ilkahaaga haddii ay ku yimaadaan talafuf ama mataqaanaaye ay kala koreeyaan, ama ay burburaan, ama ay bololaan, ama ay madoowaadaan, ama ay guduutaan, ama afkaaga uu soo uro, iyadana riyo xun waaye oo riyo fiican ma ahan. sababtoo ah waa wax arrin ku saabsan weeyaan qaraabada iyo
xanuunkooda iyo jiradooda iyo geeridooda inuu soo dhawaaday waxa inkaasoo kale ahaa lagu tiriyaa. markii khatar kugu soo socoto ayay ka tarjumaysaa ilkahaaga oo isbedelay oo doorsoomay haddii aad ku riyooto. midda u dambeyso ee 10aad ayaa waxa ay tahay haddii aad ku riyooto, tani waa ninka haddii uu ku riyoodo isaga oo faraskiisii inta hogaankii goostay, liijaankii inta goostay, baxsaday ee fakaday haddii uu ku riyoodo, iyaduna waa arrin qoyska ku saabsan weeye. gabadhiisa waa inuu il gooni ah ku fiiriyaa, waa inuu il gooni ah gabadha uu qabay xaaskiisa ah waa inuu ku fiiriyaa. ninka haddii uu ku riyoodo faraskiisa, liijaankiisa oo goostay xarigga oo fakaday haddii uu ku riyoodo. tii horena waxay ahayd gabadha marka ay ku riyooto ninkeeda oo gaari cusub kaxeenayo, ninkeeda waa inay fiiro gaar ah u yeelataa. tanna ninka ay gaar u tahay. haddii ninka uu ku riyoodo gabadha iyada oo mataqaanaa haddii uu ku riyoodo faraskiisa oo goostay xariggii, iyadana gabadha uu qabo waa inuu fiirmo gooni ah waa inuu u yeeshaa. maxaa yeelay khiyaano ayaa jirto, waxyaabo qaladaad ah uusan ilaahay raalli ka ahayn, ninkana uusan raalli ka noqonaynin ayay markaasi gabadha faraha kula jirtaa. 9kan riyo waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysatay. haddii aad ka faa'iiday walaal la wadaag oo gaarsii walaalkaaga iyo walaashaada, iyagana ha ka faa'iidaystaan markoode waqtigooda ha qaataan insha allah. guruubyada Facebook iyo WhatsApp iyo Telegram iyo meel walbo Instagramka uu ka mid yahay ku la wadaag oo la sheergaray. ilaahay idinkiis khayr badan allah idin siiye. barnaamijka xigo inta aynu ku kulmi doono waa anigoo macallin Muuse oo idin leh. السلام عليكم.